markii la dilay madaxweynihii hore ee liibiya maxamada qadaafi laguna dilay kacdoon bilowday Oktoobar 2011 waxaa soo baxay buugaag fara badan oo ka hadlayay shakhsiyaddii maxamada qadaafi maantana waxaan halkan idinkugu soo bandhigaynaa xaqiiqooyin la yaab leh oo ku saabsan madaxweynihii hore ee liibiya maxamada qadaafi haddaba ku soo dhawaada mowduuceena maanta. qadaafi wuxuu ahaa wiilka kaliya ee uu dhalay Muammar wuxuuna ka soo jeeday qoys xoolo dhaqato ah kuwaas oo degnaa saxaraha Siirta. qadaafi wuxuu ka baqi jiray diyaaradaha wuxuuna cabsi xooggan ka qabay in uu ku safro jawiga sare. caadooyinkiisii la yaabka lahaana waxaa ka mid ahaa in uu safarka diyaaradaha raaci jiray maalinta Talaadada ah. sidoo kale weligiis kalluunku muusan cunin safarada doonyaha ee uu raaci jiray. qadaafi wuxuu talada waddanka la wareegay sanadkii 1969 kadib inqilaab ay ku qabsadeen isaga iyo xarakadiisii xoreynta waxayna xukunka kala wareegeen boqor Idris kadib kacdoon ay sameeyeen liibiyiintii loogu magac daray xoreyntii liibiya. dhimashadiisii ka hor qadaafi wuxuu ahaa ninka ugu taajirsan caalamka hanti dhan $200 bilyan waxayna taasi la micnaheed inuu haystay isku darka hantida Bill Gates, Ryan Buffett iyo Carlos Slim waana qiyaastii xilligaaye waxayna hantidiisa quudin kartay shacabka waddan Carbeed muddo 5 sano ah. qadaafi wuxuu dhisay nidaam ku cusub caalamka oo uu ku xukumi jiray Liibiya taasoo aan adduunka looga xukumin waddan. wuxuuna ahaa xukunkiisa mid isugu dhex jira xukuumadii hore iyo kuwa casriga ah ee maanta. wuxuu ahaa hogaamiyaha kaliya ee ay waadiyan jireen dumar isagoo u cuskan jiray inay dumarku ka naxariis badan yihiin ragga kana khatar yar yihiin maadaama ragga mararka qaar ay soo maleegaan shirqoolo. wuxuuna dumarkii waardiyan jiray mid kasta u bixiyay magaca Aisha isagoo ku sameeyay gabarta kaliya ee uu dhalay. waqtiyadiisii ugu dambeeyay qadaafi wuxuu lahaa 4 dhakhtar oo dumar ah kuwaasoo ka soo jeeday waddanka Ukraine wuxuuna u sameeyay meelo khaas ah oo ay degaan isagoo si aad ah u aaminsanaa. 21 February 2011 shan maalin ka hor intuusan bilaaban kacdoonkii lagu tuuri rabay qadaafi wuxuu waday barnaamij uu shidaalka waddankiisa ugu qaybinayo muwaadin kasta oo Liibiyaan ah iyadoo qof kasta oo Liibiyaan ah ay ku soo aadi lahayd lacag dhan $22,000 laakiinse kacdoonkii ka dhacay Liibiya ayaan fursad siinin barnaamijkaas. qadaafi wuxuu aad u necbaa gabadhii madoobeed ee xogayaha ka ahayd Mareykanka Condoleezza Rice isagoo ku amray abwaaniinta Liibiya inay soo saaraan hees miraheedu yahay gabadhii madoobeed ee ku jirtay guriga cad. qadaafi wuxuu lahaa caadooyin badan oo la yaab leh oo uu ku saameyn jiray caalamka sida halkii uu ka taagnaa qadiyadda Falastiin isagoo soo jeediyay in la sameeyo dowlad lagu magacaabo Israa'iil oo ay ku midaysan yihiin Israa'iil iyo Falastiin. sidoo kale qadaafi wuxuu soo jeediyay fikradda dadka muslimiinta ay isticmaalaan taariikhda hijriga halkii ay ka isticmaali lahaayeen miilaadiga. wuxuuna soo bandhigay fikradda ah in Liibiya ay samaysato taariikh cusub oo ka soo bilaabanta dhimashadii rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. qadaafi waxay saaxiibo wanaagsan ahaayeen halyeegii Koonfur Afrika Nelson Mandela. intii uu xilka hayay qadaafi waxay Liibiya samaysay dhaqaale korar baaxad weyn iyo horumar ballaaran iyadoo noqotay dowladda Afrika ee shacabkeeda ugu dakhliga badan yihiin. sidoo kale wuxuu muwaadin kasta oo Liibiya ah siiyay guri sida ku qaran buugiisii cagaarna in insaan kasta uu xaq u leeyahay guri. Safiya Farkaash marwadii qadaafi waxay haysatay 20 tan oo dahab ah iyadoo lagu qiyaasay hantideeda $2 bilyan. sanadii 1977 wuxuu qadaafi soo saaray buugiisii cagaarna isagoo ku soo bandhigay aragtidii saddexaad ee caalamiga ahayd ee aanan ahayn hanti wadaag iyo hanti goosi. wuxuuna kalarka cagaaran ee buugga ka dhigay calanka Liibiya. 20 Oktoobar 2011 waxaa la dilay hogaamiyihii Liibiya qadaafi iyadoo ay dileen mucaaradkii Liibiya wuxuuna ku dhintay magaalada Sirta. waxaana halkaas ku dhamaaday xukunkii qadaafi isagoo ka mid noqday hogaamiyaashii ugu waqtiga dheeraa taariikhda aadanaha wuxuuna xilka hayay muddo dhan 42 sanadood. intaas ayaan ku soo gabagabeynay macluumaadkii aan ka soo diyaarinay madaxweynihii hore ee Liibiya maxamada qadaafi waa inoo muuqaal kale. si aad u hesho muuqaalo badan hadda subscribe dheh oo ka mid noqo boqolaalka qof ee ku xiran janaalka xoghaye nagulana soo biir caalamkan cusub aadna ka faa'iidi doontid xogo iyo dhacdooyin la yaab leh.